بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أخوتي في العقيدة، درس كوبا أيام كنت لقلي إن شاء الله تعالى، ولا لضي كنت المامين نغضه فضل مجالس الذكر، أما فضيلة iyo wanaagga iyo maamuuska iyo khayrka ku jira goobaha rabbi lagu xusayo subxaanahu wa tacaala. yacni fadhi la isugu yimaado, fadhiga ugu khayr badan leh, ama goob la fadhiisto goobta ugu khayrka badan leh, waa goob khaaliqa lagaga warramayo ama rabbi subxaanahu wa tacaala. cid laga warramana waxaa u sharaf badan rabbu samaawaati waalard. qofka muslimka oo markaa la xasuusiyo rabbigiisii abuurtay, majliska ahi waa majlis axaadiis badan nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo aroortay. waa majlis baynu leenay ugu horrayn rabbi subxaanahu wa tacaala uu nebigiisa faray, wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إلهي سبحانه وتعالى وحليه نبي محمد يضل لها الله waxaad naftaada ku sabirsiisaa inay la nagaato oo la joogto maca aladiina yadkuruuna allah, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya macooda inay ahaato. yacni haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo afdalu khalqi illaahi ah, oo sayidi albashar ah, oo rasuulkii ilaahay uu doortay ah, oo kii dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba la dhaafay ah, ayaa ilaahay wuxuu amrayaa subxaanahu wa tacaala inuu majaalistaasi fadhiisto, inuu dadkaasi la fadhiisto. idan majliska ilaahay lagu xusayo, majlis xalaal iyo xaaraan lagaga hadlaya ha ahaado, mid tacliim diiniya lagu sheegaya ha ahaado, mid qur-aan lagu akhrisanaya ha ahaado, mid lagu tasbiixsanaya ha ahaado, majlis ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xasuusanayo ayaa nebi moxamed la faray calayhi salaatu wasalaam inuu fadhiisto. axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee markaasi ammaanaysa ama fawaa'idda tirada badan le u sheegaysa waa tiro badantay. haddaynu isku dayno dhowr iyo 10 ka mida inaynu isxasuusinno. ugu horrayn, nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa majaalistaasi in sakiinadu ku soo degto. asakiina waa xasillooni, xasilloonidu inay ku soo degto. walidalik bay culammadu waxay yidhaahdaan quluubta bini aadamku ilaahay xuskiisu qalbiga wuxuu uga dhigan yahay bay yidhaahdeen siduu roobku dhulka uga dhigan yahay. yacni dhulku hadduu roob waayo maxaa ku dhaca? jafaaf iyo engeg iyo abaar baa ku dhacda. waxaa taa la mida bay leeyihin qalbigu hadduu dikri waayo, majaalisu dikri uu ka fogaado, engeg iyo qallafsanaan iyo abaar rasmiya baa ku dhacda. abaar bini aadam ku dhacdana ta ruuxda kaga dhacda iyo quluubta ugu daran. abaari waa taasi un. walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamayaa majaalistaasi inay sakiina ku soo degto. sakiinadaas waa xasillooni. xasilloonidaa waxay culammada ku fasireen inay la mid tahay ta ilaahay uu qur-aankiisa ku tilmaamaya aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. kuwa iimaanka laga helay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ee qalbiyadoodu ku xasilaan, ku degaan, ku farxaan, ku nagaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa. waxaa kale uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam majliskaasi ama goobtaasi rabbi lagu xusayo cidda fadhiisata, fadhigoodaasi in ilaahay naxariistiisa ku soo dejiyo. waa qodob labaad. wuxuu nebigu tilmaamayaa in duulkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariistiisa ku soo dejiyo. qodob saddexaad buu nebigu tilmaamo waxa uu sheegay majliskaasi inay malaa'igtu ku
ku soo ururto oo timaado yacni basharka waxaa u fadli badan dad lala fadhiista saalixiin laakiin ka warran haddii naadiga kan dadka fadhiista ay ka mid yihiin malaa'igta ilaahay muqarrabiin tahay malaa'iku raxmaan ee ilaahay caabuda majaalista ay haddaad rabto shir malaa'igaad inaad ka qayb gasho maaha shir bini aadama qura maaha malaa'igta haddaad rabto inaad shirkeeda ka qayb gasho waxaad u baahantahay inaad fadhiisato majaalis dikr meelaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusayo walidalik buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya waxafathum almalaa'ika kuwa waxaa isku xeero oo ku soo la nagaadoo la jooga malaa'igta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qodob afraad buu nebigu haddana xadiidkaasi ku sheego wuxuu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa agtiisa jooga inuu sheego nafta bini aadamka ahi min tabcihaa waxaa ka mid a sheegsheegga way jeceshay qofka bini aadamka ahi ammaanta wuu jecel yihiye madxiga ama in la sheegsheego wuu jecel yihi in lagu yidhaahdo ninkaa hebel meel adigoo ka maqan haddii la yidhaha wallahi ninkaa hebel waa nin fiican waad farxaysaa oo wallahi halkaa wax fiican baa laga yacni naftu waxay kuu sheegaysaa inaad nin fiican tahay maadaama fiicni lagugu hadal hayay haddii meel laga yidhaahdo aad ka maqantay wallahi ninkaa hebel waa nin deeqsiya ama waa nin gacan furan ama waxoogaaga xasanaadkii aad shaqaysato haddii la sheegsheego bini aadamku wuu farxaa maxaad u malaynaysaa cidda ku sheegsheegaysa hadduu rabbi samaawaati walardi noqdo qofka ilaahay sheegaya ka warran ee majliska laga sheegayaana uu yahay meel malaa'igi joogto rabbu samaawaati walardi adigoo makhluuq daciifa oo aan waxba ahayn ka warran in ilaahay ku sheego bini aadamku maanta magac buu dunida isku dilaa iyo meel hore inuu galo xidigahan la sheegaya iyo waxaan bini aadamku isku eriyanaya iyo lacagtan iyo waxaan lacagtu qiimo ma leh waayo qofka bini aadamkii wuxuu cuno unbuu ka cunayaa inta kale wuu ka tegayaa laakiin inta kale muxuu u ururinayaa in la sheego inuu noqdo milyaneer hebel ama ninkii inta kale waa magac iyo faanfaankay ka wakiiltay laakiin inta la cunaa waa in yar walidaalika insaanku sidiisaba wuxuu jecel yahay inuu wax la sheego noqdo maadaama sheegista aad jeceshahay ilaahay baa wuxuu ku leeyahay anaa ku sheegaya waxaanan kaa sheegayaa maxay majlis malaa'igi joogto sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam 4 shay oo wada socda haddaynu 2 xadiid oo imaamu muslim uu labadaba soo saaray tilmaamno xadiid wuu dheeriyey laakiin maxalu shaahidkaynu qaadanayna nebigu wuxuu leeyahy wama ijtamaca qawmun fii beytin min buyuut illah duul kuma kulmaan guri ilaahay guriyadiisa ka mid ah yacni culammadu waxay dhahdaan beyt min buyuut illahi waa maftuuxata ardullahi waasacanka meeshuu doonaha ka ahaado guri isugu kaalaya masaajid isugu kaalaya meel kale isugu kaalaya meelun ilaahay lagu xusayo subxaana wa tacaala yatluuna kitaab allah wayatadaarasuuna baynahum iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa siiba waxaan tilmaamayaa macallimiinta qur'aanka dhigta iyo dadka qur'aanka ehelkiisa ahi inay ixtisaabsadaan ilaahay dartii inaan dhan xoogsi iyo carruur baad waxbaras iyo dhankaa laga eegin in laga eego inaad noqoto khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah baa idinku khayr badan majlisna waxa u fadli badan kan qur'aanka lagu akhrinayo qofku hadduu inta niyadan la yimaado uu xisaabsado majliskan uu qur'aanka ku dhigayaa inuu yahay majlis rabbu samaawaati uu ku sheegayo maxaa ka ammaan badan kamaa daasheenba haddaad saa niyadda ku haysato oo garanaysid goobta tani inay tahay goobta qofka fadhiista ilaahay sheego subxaana wa tacaala inuu qofku qur'aan dhiga kama caajiseen kamana daaleen dabeetana nebigu wuxuu leeyahy duul isuguma imaadaan guriyaa ilaahay ka mid iyagoo ilaahay kitaabkiisa baranaya oo isu dhigaya ilaa nazalat calayhim asakiina wagashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah 4 shay aynu soo sheegnay ayuu mar qura nebigu wada sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore wuxuu ku koobay kitaabka ilaahay iyo daraasadiisa laakiin xadiid kaloo ka caamsan baa jiro isna saxiixu muslimka ku yaala wuxuu nebigu leeyahy laa yaqcad qawmun yadkuruuna allah kaasi qur'aan buu ahaa laakiin dikri oo dhan maxaa soo hosgelaya haddaanad ka hore ballaadhinba kan laa yaqcadu ma fadhiistaan baa nebigu leeyahay qawmun yadkuruuna allah duul iyagoo ilaahay xusaya meel ma fadhiistaan shir ma yimaadaan ilaahay ay ku xusayaan ilaa xafathum almalaa'ika
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa sheega oo naxariistaa ku soo degta oo malaa'igtaa goobta timaada oo ilaahay baa u naxariista baa la leeyahy haddii goob inaad xaadirto aad intaas ku helayso may ahaateen in laga maqnaado ama in beddelkeeda la siisto majaalis alghafla wallahwa majaalis khafle iyo sheeka barale iyo xan iyo war kale lagu hayo inaad siisato may hayn majaalista dadka badh waxay yidhahdaan waa kitaabka la akrinaya waan garanayaa war majaalista cilmi qura looma fadhiisto inaad macluumaadkaaga kordhiso keliya looma fadhiisto ee waxaa loo fadhiistaa oo ka mida saynu arki doonno in ilaahay dembiga kaaga maydho waa amaakinta dembiga lagu maydho waxaa loo fadhiistaa inaad ilaahay naxariistiisa ku hesho oo ilaahay kuugu naxariisto waxaa loo fadhiistaa inaad ilaahay sakiino ka hesho qalbigaaga uu raaxo iyo deganaanshiya u helo waxaa loo fadhiistaa inaad rabbi ku sheego oo kuwa alla agtiisa sheeganaad ka mid noqoto idan masaladu maaha mas'alatu macluumaat inaad macluumo kororsanayso qura masaladu maaha waxaa kaloo axaadiista nebigu ay tilmaamaysaa calayhi salaatu wasalaam in ilaahay subxaana wa tacaala yubaahi bihim almalaa'ika buu xadiid kale tilmaamaya mubaahaadku waa maxay mubaahaadka aslulbahy waa aljamaal waalxusn waa quruxda yacni waxa weeyaan quruxdooda iyo wanaagooda ilaahay sheegaa oo malaa'igtaa loo tilmaamaa loo faaniyaa duulkani inay duul dadka ka gadisan yihiin walidalik baa xadiidka isagana imaamu muslim uu warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam nebiga laga warinayo imaamu muslimna uu soo saaray mucaawiyata ibnu abi sufyaan baa nebiga ka warinaya xalqad buu soo maray dad muslimiin ay fadhiyaan majlis markaasuu yidhi halkan maxaa idin fadhiisiyey markaasa waxay dhahen waxaan u fadhiisanay annagoo ilaahay xusayna subxaana wa tacaala ilaahay baan idinku dhaariyey ma intaa unbaa u fadhidaan mise wax kale bay yidhahdeen waxay idhahdeen wax kale umaanan fadhiisan inaanu ilaahay xasuusanno o isxasuusinno ayuun baanu meesha u fadhiisanay wax kale idinma dhaarin buu yidhi iyo tuhmaan idin tuhmaysanay idinma dhaarin ee waxaan idin sheegayaa anigu nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ku dhadhow baan ka mid ahaa haddana dadka ugu xadiidka yar baan ka mid ee nebiga wax ka wariya axaadiista maalin buu saxaabadoo sidaa u fadhida ayuu ku soo baxay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war maxaa idin fadhiisiiyey markaasaa waxay idhahdeen waxaan u fadhiisanay inaynu ilaahay xusno wanaxmadu calaa maa hadaana lilislaami wamana bihi calayna waanu ilaahay ku mahadinno nicmada islaamka iyo waxa uuna siiyey markaasuu nebigu dhaariye wuxuu ku yidhi ilaah baan idinku dhaariye ma kaasoo qura u fadhidaanun inay ilaahay xustaan una nicmadiisa ka warrantaan oo keliya u fadhidaan waxay idhahdeen wax kale ilaahay baad nagu dhaarisay uma fadhino intan mooyaane markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yacnii mucaadintii nebigu sheegay in leg buu rabaa inuu sheego markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi tuhmaan idin tuhmaystay idinma dhaarinayo laakiin jibriil baa ii yimi oo wuxuu ii sheegay ana allaha yubaahi bikum almalaa'ika ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggiinna inuu ku tilmaamayo ama uu u sheegayo malaa'igta mubaahaa ilaahay uu ku samaynayo oo wanaaggiinna uu u bandhigayo malaa'igta marka dadkan wanaagooda waxa ilaahay uu malaa'igta ugu bandhigayo ayuu rabay nebigu inuu ogaado calayhi salaatu wasalaam waxaa qabanayseen maxaa samaynayseen dadkani waxay sheegayaan marka xadiidka saxiixu muslimka tilmaamaya inaanay wax kala wadin inay ilaahay xasuustaan mooyaane subxaana wa tacaala akhwatii fi lcaqiida majaalistani waa majaalis dembiga lagu dhaafo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu keennana ka mid dhigo waa majaalis dembiga la yskaga dhaafo waxaa kaloo lagu tilmaamaya xadiidka qaarkood tilmaamaysaa inay yihiin majaalis xataa sayi'aadka xasanaad loogu bedelo sayi'aadkii xumihii kaa dhacay xasanaad la ysugu bedelayo waa sidee saxiixu muslimka waxaa ku qoran iyo bukhaari baan rajaynayaaba imaam albukhaarina waa soo saaray waa saxiixaynku xadiidku wada yaalla wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina lilahi tabaaraka wa tacaala malaa'ika yatuufuuna fi اطariiq ilahay wuxuu leeyahy malaa'ig suyaaxa dhulka mara malaa'igtaasi dan kale ma laha waxay raadacaynayaan meel ilaahay lagu xusayo ay ka shiraan malaa'ig siyaaxa ah
oo dhulka socda waxaanay raadacaynayaan duul ilaahay xusaya inay helaan marka ay meel yimaadaan goob ilaahay lagu xusaya isu yeedhaan waxay dhahdaan waar halkan baa ilaahay lagu xusayaa kaalaya waayo malagtu meelaha xumaa lagu wado ma soo xaadirto waxayse soo xaadirtaa dhulka khayrku joogo meel khayr ka jira markay arkaan ayay isu yeedhaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tanaadow halumuu ilaa xaajatikum bay idhaahdaan balka warran fadhi malaa'igtu isugu yeedhanayso leedahay war bal halkan isugu keenkeena malaa'igtaa isu yeedhato waxay idhaahdaan baahidiinni baa hesheene u kaalaya dantiinni ilaa iyo samada isdul koraan buu xadiidku tilmaamaya fayaxfuuhum biajnixatihim ila asamaa malaa'igtu meeshan la fadhiyo ilaa iyo samada ayay isdul karuuran tahay markaasaa rabbigood weydiiyaa isagoo uga aqoon badan wuxuu idhaahdaa addoommahaygaa aragteen maxay leeyihiin ayaa ilaahay weydiiyaa subxaana wa tacaala waxay idhahdaan ilaahayo way kuu tasbiixsanayaan oo xumahay kaa nasahayaan tasbiixdu waa ilaahay oo aad xuma ceeb ka reebtid wayukabbiruunak waa ku weynaynayaan wayaxmuduunak waa kuu mahadnaqayaanoo waa ku ammaanayaan xamdigaaga iyo majdigaaga ammaantaada iyo sharaftaada sheegsheegeeday wadaan ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala hal ra'awnii miyay arkeen kuwaasi markaasay malaa'igtu tidhahdaa laa wallahi maa ra'awk kuwa sidaa kuu ammaanaya ilaahayow kumanay arag ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa markaasi subxaana wa tacaala kayfa low ra'awnii maxay yeeli lahaayeen hadday arki lahaayeen waxay yidhahdaan ilaahu hadday ku arki lahaayeen cibaadadoodu tamjiidkooda iyo tasbiixooda yacnii xuma ka hufnaantay samaynayaan iyo say kuwa ammaanayaan iyo sheegsheegooda wuu ka badan lahaa inta tan ilaahay wuxuu ku yidhahdaa malaa'igtiisa markaa maxay weydiisanayeen waxay yidhahdaan ilaahu waxay ku weydiisanayeen jannadaada rabbaa wuxuu yidhahdaa oo miyay arkeen jannada may baa la yidhaahdaa bal maxay yeeli lahaayeen buu rabbi leeyahy hadday jannada soo arki lahaayeen weynideeda iyo badhaaleheeda iyo barwaaqadeeda waxa yaalla hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen ilaahu hadday soo arki lahaayeen dadaalka intay kasii badin lahaayeen bay idhaahdeen baadigoobkeedana wuu u tiro badan lahaa hunguriga ka hayaana wuu tiro badan lahaa dabeeta waxay yidhaha rabbaa wuxuu weydiiyaa maxay iga magan gelayeen waxay yidhahdaan ilaahay naartaaday kaa magan gelayeen oo naarta miyay arkeen baa la yidhaahdaa ilaahu may arag hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen ilaahayow way ka carari lahaayeen say imka uga ordayaan si ka badan bay uga firdhan lahaayeen waana cabsidooduna waa ku badan lahayd ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala natiijadii xiwaarkii ilaahay iyo malaa'igta dhex maray waa kan aslil mas'ala waxay ahayd dad ilaahay xusaya iyo malaa'ig dhulmar ah oo dhulkooda iska socda oo daydeeya dhulka ilaahay lagu xuso oo helay goob ilaahay lagu xusay dabeetana rabbi su'aala weydiiyey malaa'igta tano ay ka jawaabeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu gebagabeeyaa markaa ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa malaa'ig yahay annii qad gafartu lahum kuwa inaan dembigooda dhaafay ayaan idin markhaati geliyey baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qiyaama u markhaati fura kuwaas inaan dembigooda dhaafay malaa'igtu markaa way hadlaano waxay idhaahdaan malaa'igta ka mid a hadla saa xadiidka qaarkood tilmaamay waxay idhaahdaan ilaahayow waxaa ku jira mid isagu dan kale u yimi midaan isagu xuskan iyo baabkan la soconay dan kaluu watay oo waxbuu muraajacaynaya ma qof baa meesha ka soo galay ma wax kale yacni xaajo kale baahi kale miday waday ayaa meesha jooga ilaahay wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala isagana dembigiisa waan dhaafay kan isagu iska yimina waa la dhaafay waayo hum uljulasaa laa yashqaa bihim jaliisuhum ba ilahay yidhaha waa duulka la fadhiyaa aanu hoogin buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwan daraaddood ayaan kana ugu dhaafay baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala idan majaalisu dikri haddaad fadhiisato oo aad u soo qasdido ilaahay dembigaagu dhaafaya xataa haddaad iska ag fadhiisato uun ayaa ilaahay dembigaaga dhaafaya saa xadiidka kani tilmaamaya taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ahi waxay ahayd inuu in badan isweydiiyo warduulkee ilaahay xusaya ama kaalaya ilaahay xusne ama xusidda ilaahay la xusaya inay noqoto wax weyn oo qofka muslimkii uu raadceeyo oo u baadigoobo walidaalika ba xadiid kale nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam
majtamaca qawmun calaa dikrin fatafaraquu canhu ilaa qiila lahum duul isuguma yimaadaan ilaahay xuski oo ma kala tagaan ilaa iyo waxaa lagu yidhaahdaa quumuu makfuuran lakum kaakaca albana saxiixinaya aljaamici sagiirka quumuu makfuuran lakum kaakaca ilaahay baa subxaana wa tacaala dembigiina dhaafaya xadiid kale oo silsilada albani ku soo saaray wuxuu nebigu leeyahy maa jalasa qawmun yadkuruuna allaha tacaala fayaquumuun xataa yuqaalu lahum duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya oo dabeetana ma dhammaystaan dikrigoodiiyo ma kaakacaan ilaa iyo ilaahay xaggiisa waxaa laga yidhaahdaa quumuu qad gafara allahu lakum dunuubakum kaakaca ilaahay baa dembigiinnii dhaafay wabuddilat sayi'aatikum xasanaat sayi'aadkiinniina xasanaa laydinku beddelay ordoo iska taga xadiisyadii hore waxay tilmaamayaan maxay in dembiga la dhaafayo xadiidkani ziyaada abuu ku daray maxay in sayi'adiina xasana lagu beddelayo idan ayuha alikhwa haddaan wax kale soo aroorin halkaa xadiid mooyaane jalsada ilaahay lagu xusayo ee ilaahay wax laysaga sheegayo qofka mu'minkii wuxuu isku dayi lahaa inaanu ka maqnaanin walow kaana aclamahum haba ahaado kooda u aqoon badan mas'alatu lcilmi masaladani maaha waa masale sheegaysa maxay ilaahay xuskiisa oo dadku isu gargaarsadaan oo isugu yimaadaan in ay dadkani waxaan oo dhan oo ajar ay ka helayaan waxaa axaadiistaasi ay caddaynaysaa markaa majaalista ilaahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala malaa'igi inay ku soo degto naxariista ilaahay inay timaado ilaahay subxaana wa tacaala sakiina xasilooni inuu siiyo ilaahay malaa'igta agtiisa joogta inuu u sheego bale wanaagooda mubaahaah in lagu sameeyo wanaagooda iyo khayrkooda lasoo bandhigo dembigooda in ilaahay dhaafo ciddaan iyaga ka tirsanayn ee u timinaya in ilaahay dembigooda la dhaafo waxaas oo fadiili ihi waa mujarad inuu qofku ka qayb galay majlis ilaahay subxaana wa tacaala loogu xusayo ilaahay lagu weynaynayo sayi'aadkiisa in xasanaad loogu bedelo intaa waxaa sii dheer marka majliska haddaad aqoonka kororsato waa shay dheeraad oo kale ku dhaqankaad aqoontaad ka kororsatay ku dhaqantaa waa shay dheeraad oo kale waxaasoo dhamme waa dheeraad laakiin waxaan ka warramaynaa oo dariskuba u caqidayahin waxa weeyaan fadiilatu lmajlis maaha fadiilatu dikri kama warramayno xuska fadiilada uu leeyahay kama warramayno tacliintu fadiilada ay leedahay kama warramayno in wax la barto fadiilada ay leedahay waxaan ka warramaynaa inaad meesha fadhiisato uun fadiilada ay leedahay mujarad inaad ka mid noqoto dadka meeshaa fadhiya waxa laga faa'iidayo ayaynu tilmaamaynaa walidalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa majlis kasta oo kaa kayrkii waa maxay aan ilaahay lagu xusin majaalista aan ilaahay lagu xusin fadhigoodu wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam duulka meel fadhiista ee aan ilaahay xusin nebigana ku salliyin calayhi salaatu wasalaam meel fadhiistay ilaahayna may xusin nebigana kumay sallinin dabeetana kala tegay waxay ka kaakacaan sidii dad baktika u qurhmuunka dulkacay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka qaarkii wuxuu tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan bakti dameer baktiyey waa meelahan fadhi ku durarka sheekada tororogta warka kale lagu hayo waxaa la leeyahay markaad ka kacdo waxaad la mid tahay nin ka kacay meel bakti yaalay ka warran ninka malaa'igta loogu faanayo iyo ninka meel baktigu yaalla kasoo dulkacay labadaa qof intay isu jiraan waa laba waxaana laga yaabaa in 10 tallaabo ama 5 tallaabo udhaxayso labadaa majlis waxaa laga yaabaa in 5 tallaabo udhaxayso kana waad fadhiisan karaysay adaad doortay inaad bakti fadhiisato iyo inaad fadhiisato kay malaa'igtu ka shirto ama ka ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegayo ee rabu samaawaati waalardi xaggiisa lagaa sheegaya inaad kaa fadhiisato iyo inaad fadhiisato maxay jiifatu ximaar bakti
dameer baktigii inaad dul fadhiisato aday kugu xidhantay bale nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam duul majliska ma fadhiyaan riwaayaadka axaadiiskan dambe aan sheegayana inuu saxiix aljaamici sagiir sheekh albana ku soo saaray waxa uu sheegayaa axaadiista qaarkood majliskaasi qiyaamaha xasra buu kugu noqon doonaa xasra tiiraanyiyo murugo mid kugu reebuu qiyaamahana noqon doonaa haddaan wax kale kaa raacin oo qudhan dee waxaa ajar kugu seegay kii kaleba oo qura kugu filan murugo haddiiba dembi kaa soo raacayna waa ka sii daran yahay walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiis badan inoogu tilmaamayaa majaalista ilaahay lagu hadal hayo diin laysugu sheegayo wacdi laysugu sheegayo qur-aan lagu subcinaya lagu akhrinayo lagu baranayo lagu wardinayo ilaahay dikrigiisa iyo wardigiisa la hayo wixii diinta waafaqsan ee sharci islaam waafaqsan lagu hayo inay yihiin majaalista gaarka ah ee rabbi xaggiisa mudnaanta ka leh waxay culammadu yidhaahdaan faa'iide kaloo dhan haddaanad helin bay yidhaahdaan majaalisu dikri fawaa'idda ugu fiican ay leeyihiin waxaa ka mida bay yidhahdaan xifdu lisaan bini aadamku bay yidhaahdaan carabkani dhaqdhaqaaqa ma daayo hadalka kama maarmo way adagtay bay yidhahdeen qof bini aadami inuu aamusnaado walidaalika inta badan bini aadamku labada waddo midunbuu hadalkeeda hayaa ama ka baatilka abaad duraysaa ama ka kalaad duraysaa waxay yidhahdaan majaalistaasi haddaanay wax kale kuu faa'iideyn xataa waxay kuu faa'iideynaysaa bay leeyihin carabkaagu inuu diraddiraalanimo iyo haybo iyo namiimo iyo been iyo xan iyo balasheegaad xataa kaga baxsanaysaa baa la yidhaha marka waxa la yidhaha waa dhufays laga galo dembiga waayo ka kale markaad fadhiisato way ku soo hormarin lahaayeen markaasaadna dhanka kaga daraysaa sheekada waa la isku dardarsadaa ninba marka dambe inbuu keenaa miduu ninkaarqabaa baa xumaha bilaaba dabeetana waa lagu dardarsadaa ninba in siduu ugu darayo ayay carreeedi ka dhacdaa markaa waxa muhimkii markaa wuxuu yahay bay leeyihin majliskan haddaanad wax kale ka faa'iidin bay dhahdaan culammadu carabkaagaa wuxuu ka nabadgelayaa wax allaale iyo wixii xuma la hayay ayuu ka nabadgelayaa carabkaagaa aamusnaanaya ayuha alikhwa majaalista tani waa majaalista iimaanku uu ku kordho waataynu nidhi muqaddamada ku tilmaamnay meelaha ilaahay lagu xusayana qalbigu inuu qoyo oo waxaynu nidhi wuxuu dikrigu uga mid yahay qalbiga sida roobku uu dhulka uga mid yahay roobku markuu dhulka helo waa cagaartaa wax waliba waa noolaadaa nolosha ku soo noqota quluubtuna markay ilaahay xuskiisa hesee majaalisu dikriga ay fadhiisato way noolaataa markay majaalisul ghafla wallahwi ay gashana way ghafloomtaa way wareertaa way dhuntaa way abaarsataa way madhataa waa tirtirantaa walidaalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisu oo da isagu majaalista kale ka fadli badnaa ka cilmi badnaa ka aqoon badnaa ka alla ka cabsi badnaa ka wanaag badnaa waa waxa saxaabadu maxay dadka dheertay fadiilatu suxba inay nebi maxamed ag fadhiisteen ajarka kale oo dhan haddaad kula loolantid waxaanad ku gaadhaynin dee intay nebiga ag fadhiyeen fadiilatu suxb walidalik waa kii saxaabigii tilmaamayay majliska nebigu cayn ku eekaa xadiidkii xandala kaaga filan xandala ghasiilu lmalaa'ika saxaabigu nebigu ku tilmaamayay malaa'ig baa maydhay markuu geeriyooday yani ghaswatu uxud raggii shuhaadada ku noqday buu ka mid ahaa isagoo haweentiisii aroosa oo aroos dhow oo nin dhallinyaro ah oo gabadhiisii iskala cayaaraya ayaa la yidhi xaya cala aljihaad dabeetana waa ka soo cararay biyaba ma haleelinayo biyo isku shushubee goobtuu toos ka tegey dabeetana isagoo dhallinyaronimadiisii qaba ayuu dagaalka galay shahaadu ku qaata dabeetana ilaahay malaa'ig buu usoo dirtay maydhaysa shahiidka lama maydho waxba laguma sidiisa lagu aasaa shuhadadii kale sidoodaa lagu aasayay laakiin kan wuxuu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isaga waa la maydhay kadib buu la weydiiyey reerkii iyo dadkii maxaa jiray maxaa xandala isaga sida gaarkaa loogu maydhay xandalaha kani aabihiina waa kii xagga kale godka ka qodayay soo saa ma taqaaniin abu camir alfaasiq godku nebi maxamed ku dhacayna aabihiiba qoday
isna xagga gaaladu ka soo jeedo dhan kalu ka soo jeeday xandalana waa kan malaa'igtu maydhayso waa labadaa guruubee ninba safku doonaya uu raacay xandala malaa'ig baa maydhay xandalahaasi waxa uu tilmaamayaa waxaan rajaynaya inuu isla isaga yahay ayankan waa hubin doonaa inuu xadiidku xandalu isaga yahay iyo xandalo kaloo saxaabiga isna jira inuu ka kala yahay ayankan xadiidkan xandala ninka la yidhaahdo warinayo gurigiisuu tegey dabeetana carruurtii iyo xoolihii iyo wixii buu kala celceliyey kadibna wuxuu xasuustay majliskii nebiga markuu fadhiyey majlisu dikrigii markuu fadhiyey siduu ahaa iyo iminka xaalkiisu siduu noqday markaas buu naxay abibakar baa u yimo wuxuu yidhi war xandala bal warran wuxuu yidhi xandala waa munaafaqoobay xandala waa munaafaqoobay bi'sa maa qulta buu yidhi waxaad ku hadlaysaa waa wax xune maxaa dhacay wuxuu sheegay majliska nebiga markuu fadhiyo siduu noqonayay iyo iminka xaalkiisu siduu noqday yacni saxaabadu majaalista nebiga moxamed calayhi salaatu wasalaam majliskiisa markay fadhiistaan shafaafiya ruuxiya bay heli jireen janniya naar bay arkayeenba wuxuu leeyay markaanu majliska nebiga fadhino waxaabaad moodaysaa naarta iyo jannada inaanu indhaha ku hayno markaa dee quluubtooda iyo doonistooda iyo fikirkooda iyo caqligooda iyo aragtidooduba naar iyo janno sidii midna loo heli lahaa midna looga baxsan lahaa bay ku mashquul yihiin laakiin buu leeyahy markaanu xaafadaha nimaadno ee carruurtii iyo reerkii iyo xoolihii iyo wixii dhex nimaadno waxaad moodaa xidhnaanshiyihii nawcun maa wijhadu ay isbeddesho oo xoolaha ka shaqeeya waxa kan iyo uu qofkii waxyaro halmaamay dabeetana abibakar wuxuu idhi dee taasi wayna wada haysataaye balina wadii nebigii weydiinay nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam qadiyadii baa loo sheegay marka majliskiisa la fadhiyana inay naar iyo janno sidii wax arkaya la mid yihiin marka ay majaalistii xaafadda tagaan iyo carruurtii iyo reerkiina in qalbigu aanu sidii ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih low kuntum kamaa takuunuuna cindii haddaa ahaan lahaydeen sidaad tihiin marka aniga ila joogtaan yacni marka aniga ila joogtaan sidaa tihiin haddaa ku daa'imi lahaydeen lasaafaxatkum almalaa'ika buu nebigu yidhi malaa'igtaaba waddooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni shafaafnimada waxaa gaadhi lahaydeen waktiga malaa'igta isa salaantaan oo gruubkaasi ay isku koox noqotaan basharka caadigaa iyo qurunkiisabaa ka baxdaan idan majliska nebigu nooca kan buu ahaa kii nebi maxamed ma hayna calayhi salaatu wasalaam laakiin dad saalixiin oo badan baa jira dad badan oo khayr badan baa jira dad badan oo culamaa baa jira majaalis badan oo ilaahay ku xasuusinayaa jira dad muuqaalkooda uu rabbigaa ku xasuusinayaa badan qofka mu'minkii majaalistaasi inuu badsado oo fadhiyo weeyaan waayo qalbigiisaa dib ugu soo noolaanaya saacaddaynu hadda waxay isu sheegayna ilaahay is xasuusinayno sidaynu u fakerayno iyo sidaynu waxaynu ka fakerayno iyo waxa uu qalbigeenu dareemayo iyo saacaddaynu maqaaxida fadhina waxaynu ka fakerayno iyo waxa qalbigeenu dareemayo waxaynu ka sheekaynaynaa isku mid maaha saacadna rabbu samaawaati walardi baynu ku xidhannay oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisaynu haynaa oo weynidiisaynu ka warramaynaa oo naxariistiisa iyo jannadiisa iyo wuxuu dad u diyaariyaynu ka warramaynaa oo cadaabkiisa iyo waxa aakhiro mushkilo jirtaynu ka warramaynaa idan adduunkani agteenna wuu ku yaraanayaa wax yar buu noqonayaa ama waxaan bidhaan lahayn muuqaal fog waxaan lahayn waxaa agteenna ku weynaanaya aakhiro iyo waxa jira walidaalika ayuha alikhwa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadaasi wuxuu ku yidhi walaakin saaca wa saaca saacad iyo saacad dadka badh abaalisaaba saacad iyo saacadda waxay ka dhigeen saacad wax layska dabaasho iyo saacad ilahay lacabo war saacadahoo dhan ilahay baa saacad macsiyeediyadu kuma jirto fii kitaabi illahi wa fii sunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam saaca fi lmacsiya kuma taallaba saaca fi lkufrina kuma jirto saaca fi lmacsiyana kuma jirto waxaa laga warramayaa saacadaad cirka maraysa iyo saacadaad dhulka lugaynaysa rabbigaana aad taqaanid waxaa laga warramayaa saacaddan inay tahay saacad zaad aad qaadanayso sahay aad qaadanayso iyo saacadaad sahaydii isticmaalayso
yacni saacaadkan la sheegayaa waa inaad leedahay saacaad gaara oo iimaanku uu qanjaha ku gaadhi karo uu ku buuxsami karo oo aad shidaalkaaga oo dhan dhaansan kartid si saacadaha kale aad u isticmaali kartid walidaalika ayuha alikhwa majaalista haddaad aragto iyadoo naftu ay cidhiidhi dareemayso markay majaalista khayrkaa tagmaado nafta tuhun majaalista khayrka haddaad aragto iyadoo cidhiidhi ku dareemaysa majaalista sharka iyo shaydaannimada lagu hayana aad moodayso inay faraxsan tahay oo aanay waxba dareemayn majaalista khayrku haddaad saacadda eegto waar wadaadku imisuu haddayda tira badanah majaalista kalena haddaad 3 saacadood fadhidaan waxba ogeyn 2 saacadood 3 saacadood haddaad tv-ga shido oo uu soo gasho cayaar shaydaamadii lucbada cayaari jiray ay cayaarayaan saacad iyo badhka ama 2 saacadood waxa laga yaabaa inay kugu dhaafto daqiiqatayn ma tirsana weligaana isweydiin maysid waqti badan baa fadhiyo odhan maysid laakiin saacad iyo badh muxaadara ama wadaad meelka hadday ama kitaab la akhrinayo ama khayr la waday haddaad fadhido waar wadaadku naftu naga saaraad leeyahay mantoo dhan buu meesha nugu hayay yacni waxaad dareemaysaa naftu xaggay u socoto ay u baahan tahay in dagaal lagala galo ama laga soo celiyo naftu ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala duulka aan ammaanayn markuu qur-aanka kaga warramayay waidaa dukira allahu waxdah ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira baa ilahay yidhi haddii ilaahay keligii la xuso oo cidda la sheegsheegaya ee ilaahay u noqoto waxay yaqyaqsato cidhiidhtoonta baa ilaahay leeyay qulubta kuwa aan aakhira rumaysnayn waar wadaadku wacdi badan haddii haddaba intaas ku filan ama wax kale ka sheekeeyo wadaad soo koob ayaa la leeyahy amaa ilaahay wuxuu leeyay waidaa dukira aladiina min duuni waxaan ilaahayn haddii la sheegana idaa hum yastabshiruun baa ilahay leeyay waaba kala badanayaanoo markaasay faraxsan yihiin haye buu leeyay yacni ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddii ilaahay la xusana waxaa cidhiidhiyooma kuwaan aakhiro rumaysanin inay aakhiro dan ka lahayn waayo ninka aakhiro dan ka lihi haddii rabbi lasoo hadal qaado waxay hayd inay qalbigiisu u ballaadho oo u xasilo oo u dego aladiina aamanuu ilaahay waxaynu sheegnay inuu qur-aanku ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub in la yidhi idan hadduu qalbigu qalbi mu'mina yahay aladiina aamanuu baa laga horraysiyey qalbigu hadduu qalbi mu'mina yahay waa inuu itmi'naanka dareemaa waa inuu xadkan gaadhaa haddii kale muu laylyamine waa inaad laylidaa training waa inaad siisaa intuu qashinku uu ka baxayo gaadhigaaga caadiga aad wadataa wuxuu u baahan yahay siyaano iyo ilaalin iyo hagaajin iyo haddii layska wado un ka warran waxba baa loo eegin waa inuu in yar ku khalkhalaa haddaad gaadhiga biyo u eegin oo saliid u eegin oo waxba ogaa iska wado un waxaa la mid ah qofka bini aadamkaa inuu nolosha iska wado un isagoo aan u eegin ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa iyo alla kacabsigiisa isagoo aan u eegin idan majaalisu dikri waa meelaha shaxniga laga soo qaato recharging waa meelaha bateriga dib looga charge garaysto waa meelaha qalbiga lagu soo nooleeyo waa meelaha uskaga lagu soo maydho haddii kale ilaahay mu'minka markuu sifaynaya waxaa la leeyahay aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum baa la yidhi waa kuwa marka ilaahay la xuso dee markaad majlis dikri fadhiisato waa majlisuuna ilaahay lagu xusayo ilaahay marka la xuso waa kuwa qalbigoodu gilgilmaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qalbigoodaa gilgilma amaa majaalista kale qolada ku faraxda ee qalbigu u waasacmaa waa aladiina laa yu'minuuna bilaakhira ikhwatii fi lcaqiida markaa waxaynu u baahannahay inta dambe siiba dadka wakhtiyadan dambe waxaa ku batay majaalista kutirikuteenta lagu hayo majaalisulcilmi aad bay u yaraadeen majaalista qur-aanka lagu akhriyaa aad bay u yaraadeen majaalista wardi lagu akhriyaa aad bay u yaraadeen waxaad eegtaa uun wakhti kastoo aad masaajidka timaado meelaha muranka iyo sheekada iyo hadal ka jirto inta fadhida iyo deriska sheekh cali doctor cali ustaad brofessor jaamacad wax ka dhigi jiraa laydin keenoo la yidhi halkaasuu idin fadhiya waxa idin akhriyo yani maqaacid aljaamicaat nin wax ka dhigi jiray ayaa waxaa la yidhi halkaa u fadhiiso oo dadka wax u dhig
waxaad eegtaa majliskiisa inta fadhidaa inta ay leegtay aqoon yari ma taalo wax garasho la'aani ma joogto wax gudbin la'aani ma joogto afafka kaa garanaysaan buu idinku akhri karaya carabi ingiriisi soomaali waxaad doonaysaan baa lagu akhrinaya kullu dhalik wax cillada oo la tilmaamaa ma jiraan wax uu qofku marmarsiiya ka dhigtaa ma yaallo haddana markaad majaliskaa eegta inta dad fadhida inta ay tiro leeg yihiin majaalista qur-aanka lagu subcinaya ama lagu akrinaya ama wax laysaga sheegaya dadka fadhiya inta ay tiro leeg yihiin majaalista ilaahay la isku xasuusinaya dadka fadhiya intay tiro leeg yihiin iyo waxaad isu eegtaa haddaynu maanta nidhaahno majlis siyaasadda lagaga warramayaa jira ee isu kaalaya qadaaya siyaasa fi somaal ayaynu ka warramaynaa haddaynu idhaahno majliska dadka soo xaadiraya iyo dadka u ololeynaya iyo inta imanaysa iyo inta waxaan ka cabsi qabaa marka inaynu ku biirro kuwan ilaahay leeyahay idaa dukira allahu waxdah ilaahay keligii haddii la sheego aan wax kale lasoo hadal qaadin qalbigaa cidhiidhiyooma ilaahay nagama dhigo subxaana wa tacaala waidaa dukira aladiina min duunih kuwaan waxa ilaahay ka sokeeya min duunihigu waa wax kastoo aan rabbi ahayn wixii ilaahay ka sokeeyo oo dhan aaliha qura lama odhanin waxaa la yidhi waa min duuni waa lagu itlaaqay ilaahay waxa ka sokeeyo oo dhan haddii la sheegana idaa hum yastabshiruun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala idaa hum waaba iyagiyo idaa alfujaa'iya yani waaba iyagiyo un markaaba farxaddu iyo raynrayntu bilaabantay ikhwati fi lcaqiida waxaa layna faray majaalista kale inaynu ku yaraana maynan tegin waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waladiina yani ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaad u fiirsato inta uu ka warramayo majaalista hadalxumada lagu haya ama laqwiga lagu haya ama caynkaasi oo dhan ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniintiina yihiin kuwa aan xaadirin kuwa hadday soo maraan qaaluu salaama yidhaahda kuwa acradu ka jeesta qur-aanku sifaadku mutaqiinta ku sheegay ama kuwa ilaahay ka baqaa majaalista aan dikriga ahayn saasuu ku sifeeyey bale ilaahay wuxuu tilmaamaya xataa majliska mubaaxee la fadhiyo haddii lasoo hadal qaado wax diinta ka soo horjeeda maxaa diinta ka soo horjeeda xam bay noqon kartaa been bay noqon kartaa dad lisu cadhaysa wax diinta ka soo horjeeda hadday noqoto waxaa la sheegay inaad sii fadhinin ama inaad radido waxaan inaad joojisaa ama radido culayska intaa leg iyo dembiga intaa leg inaad qaadda waxaa kaaga fadli badan inaad marka horeba ku biirin oo majaalistaad sileedahay war kan khayr lagama hayo marka horeba fadhigooda inaad iska yarayso mar haddaanu meeshu ahayn meel khayr lagu hayo inaad marka horeba iska yarayso darsigu biidni illaahi tacaala waxaanu ku talagalnay inuu xasuus noqdo ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala majliskeenaasi majlis dikriya inuu ka dhigo ilaahay lagu xasuusto alla inuu inagu daro kuwa agtiisa ka sheego dembigoodana dhaafo naftaydiiyo idinkabana waxaan idinkula dardaarmayaa nafta tani rabbayn bay u baahantay in la rabbeeyaa waa mas'alo waqti iyo juhdiba u baahan waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana baa ilaha yidhi kuwa taayada ku dirira ku dagaalama ku dadaala maanta dadkiina xaggan jooga in badan oo ka midi arsaaqdii waxaad mooddaa nawcun maa makfuul inay too la arkayo shaqadii xoogsigii meeshii wax kaa soo gelayay furasku way yaalliin noloshuna intaa haysataan ma dhaafto mid ka macaan badan oo la galaana ma jiro laakiin wixii macaanayn lahaa baa loo diiday wixii macaanayn lahaa ayaa loo diiday wixii macaanayn lahaa wuxuu ahaa maxay inaynu ilaahay xuskiisa badino waxaa macaaneeyaa nolosha waa kaa ilaahay xuskiisa inaynu badino siiba dhulka ilaahay lagu xusaya inaynu nimaadno markaynan xataa majliska fadhinina inaynu ilaahay sideenna u xusno adeer baa sheekh ibraahim wuxuu ilahaa dadku inta in leg bay nebiga ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam wadaadadan dambe markay malaa salaada tukanayaan unbay ku salliyaan saxankaa maaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamad rasul allahuma salli calaa maxamedka mid ka dambeeyo aad akhrida miyaa garanaysaan waa abaarsi sida u yaalla
waana kuu nebi maxamed ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa yidhi ilaahay rasuulkiisa intaan kugu salliyaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi badso wuxuu sheegtay dikrigayga oo dhan intaa ma ka dhigaa haddaad ka badsato waa kuu khayr intaa ma ka dhigaa haddaad ka badsato waa kuu khayr markii dambe wuxuu yidhi dee dikrigayga oo dhanba salligaaga ma ka dhigaa ilaahay rasuulkiisiiyo inaan kugu salliyo un dikrigayga oo dhan ma ka dhigaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad sidaa yeesho hammigaagaa ilaahay kaaga fillaan doona waabaad werwerbeelaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salatu wasalaam haddaad nebi maxamed salligiisa badsato yani axad alculamaa'i almucaasiriin sheekh saalix almuqamasi ayaa waxaa la yidhahdaa wadnaha xanuunay dabeetana waa la qalay dhakhtar baa la dhigay markii uu camaliye culus ka soo baxay ee meesha la keenay 24 saacadood kadib buu miiraabay markii uu miiraabay ajisadu madaxaygay taallaa buu yidhi baa dhakhaatiirtii iskay soo dul taagtay waxay arkeen ajisadii ku dul xidhnayd qalabkii ku dul xidhnay oo si fiican u shaqaynaynin dabeetana dhakhtar buu yeedhaa dhakhtar buu saalix almuqamasi waa masjid quba imaamkeeda madiina almunawara cidba u yeedhaa ilaa 14 dhakhtar baa isu yimi buu yidhi doctor aadam nin la yidhaahdo suudaaniyo meesha ugu khabiirsan baa haddana loo yeedhay dabeetana waxay tuseen aadam markuu maajisadiiba sidaa u eegay buu wuxuu ila hadlayba wuxuu igu yidhi buu yidhi sheekh saalax camaliyadii hore kumaynan najixin mar labaad baan kugu celinaynaa tiyaatarka in dib loogu qaado ha laga furo baa la yidhi ajisada wuxuu yidhi gabadh yar oo labnaaniyadoo neerska ka mid ahayd ayuunbaa waxay igu tiri bay tidhi oo meesha taagneed baa waxay tidhi sheekh saalax nebiga ku salli ilaahay baa kaa fardaamin doonee wuxuun baan idhi buu yidhi anigoo gabadhii uun warkii ay igu tidhi allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed ajisadii unbaa rag dib bay wada shaqaysay xinjirtii qalbigu waa furantaa la yidhi sheekh iska alla kaa farajiyey baa la yidhi iska fadhi hamigaaga ilaahay baa farajiyey waxaan uga jeedaa ilaahay dikrigiisu waa nimco in la xusaa waa nicma ama ha noqoto wardi la akhriyo adkaartii iyo awraaddii nebi moxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ama ha noqoto meelaha dikriga ugu fiican lagu hayo ilaahay kalaamkiisa dhulka lagu dhigayo qur-aankii warkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkiisii iyo diintiisii meesha lagu akhrinayo dikri ka weyni ma jiro waana ilaahay unbaa la xusayaa oo la isu sheegaya naftaydiiyo tiinaba waxaan kula dardaarmayaa war dhul lagu abaarsadaabaad joogtaane yuu qalbigu idinsii engegin bismi illahi raxmaan raxiim wax badan ma sheegayaa masaladun baan rabaa inaan dib idin xasuusiyo xandalada xadiidka wariya xandala naafiqa xandala waa xandalata bnu rabiic alusaydiy marka xandaladana ghasiilulmalaa'ikana waa xandala ibnu abi caamir marka waa laba nin oo kala nooca kan naafiqa xandala waa min kutaabi alwaxyi waa qoladii waxyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam qori jirtay buu ka mid yahay ninka kalena waa nin dhallinyara ninkani waa xadiidkiisa ku tilmaamaya markaanu carruurtiiyo reerka u tagno ninkana waa aniga idinla imkaaba aroos ahaayo uu ku dhintay marka waa laba nin oo kala nooca wasalaamu calaykum sala allahuma calaa nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin